bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaha sharafta badan meel kasta aad joogtaan, waa walaalkiin maxamed maare. halka aad iga daawanaysaanna waa facebook pagekeyga maare iyo youtubekeyga maare. maanta muuqaalkeenna waxaan kaga hadli doonaa 4 astaamood oo ay dumarku jecel yihiin inay ka arkaan ragga ay rabaan inay mustaqbalka la wadaagaan. 4 astaamood oo ah kuwa dumarka dhankooda muhiimka ah isla markaana ay ku xushaan ragga ay nolosha la wadaagayaan. rag iyo dumarba waxaa jira sifooyin iyo tilmaamo midba midka kale uu jeclaan lahaa inuu ka arko. waxaa jira sifooyin badan oo haweenku ku qiimeeyaan ragga ay jecel yihiin inay nolosha la wadaagaan. ragguna sidoo kale waxaa jira astaamo ay jecel yihiin inay dumarka ka arkaan. laakiin muuqaalkeenan maanta waxaan kaga hadlaynaa waa kee ninka ay haweenku aadka u jecel yihiin ee soo jiidashada badan. waa su-aal in badan la isweydiiyo, xataa rag badan ayaa isweydiiya maxay yihiin tilmaamaha ama astaamaha ay dumarku jecel yihiin in ay ragga ka arkaan. inta aanan muuqaalka u gudbin waxaan si sharaf lagaaga codsanaya inaad muuqaalka leeg saarto lana wadaagto saaxiibadaada kale si aan u helo dad adigoo kale u wanaagsan. kusoo dhawaada muuqaalka. 1. ninka eegmada degan. indhuhu waxa ay ka mid yihiin aaladda ugu soo jiidashada badan ee ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa ku galaday. indhaha iyo daymadoodu waxa ay saameyn weyn ku leeyihiin dareenka soo jiidasho, waana astaamaha iyo halka ugu horreysa ee qofka laga dheehdo marka aad la kulanto. daymada qofka ee araggiisu waxa ay muujisaa dareenkiisa akhlaaqeed, habdhaqan iyo sifo ee qofka u gaarka ah. indhuhu waxa ay u hadlaan sida carabka oo kale, umana baahna turjumaan. raggu waxa ay ka hadlaan indhaha, waana dareenka ugu sarreeya ee ay wax ku cabiraan. sidaa darteed ragga daymada degan oo naxariista leh gabdhuhu kama xiisa gooyaan. haweenku waxa ay ka didaan oo necab yihiin ragga aragga ama daymada kulul. qodobka 2. ragga kaftanka badan. haweenku waxa ay si ba-an u jecel yihiin ragga maadayska badan ee inta badan dadka u sheekeeya, kaftanka badan ee ka qosliya. waxa ay necab yihiin ragga aamuska badan ee hadalka yar. sidoo kale dumarku waxa ay jecel yihiin ragga dabacsan ee sida degdega u cara burbura haddii ay xanaaqaan. waxa ayna necab yihiin ragga carada dhow ama aan hore u cafin dadka, oo dadka aan caradooda aan hore u liqin aad bay u necab yihiin dumarku sida la sheego. qodobka 3. ninka jooga dheer leh. qaabdhismeedka dharar ee raggu waxa ay ka mid tahay astaamaha sida weyn haweenku u qiimeeyaan. ragga leh joog iyo qaabdhismeed dheer aad ayay haweenku u jecel yihiin, waxaana la sheegay in ragga dhaadheeri noqdaan kuwa ugu saameynta badan soo jiidashada haweenka iyo soo jiidashada marka la barbar dhigo ragga gaagaaban. haween badan oo dookooda ragga la weydiiyey waxa ay u bateen inay jecel yihiin ragga dherer ahaan dhaadheer. qodobka 4. ragga faraha dhaadheer, laacdanka badan, ciyaarta badan. inkastoo dhaqan ahaan arrinkan muslimiin ahaan uu inagu adag yahay, haddana marka la joogo nolosha qoyska oo ay arrintu ka gudubto xiriir keliya, waxaa la ogaaday ragga haweenka la ciyaara ee ku wanaagsan faraka ciyaarku ay noqdeen kuwo qalbiga haweenka ku weyn. taabashadu waxa ay ka mid tahay aaladaha ugu awooda badan ee dhinaca soo jiidashada dareenka jidh iyo caadifadeedba. waxa ay qayb weyn oo muhiima ka tahay dhismaha dareenka caadifadeed ee nafsiga ah. waxaanu aad ugu habboon yahay lamaanaha isqaba marka ay guriga wada joogaan inay noqdaan kuwo wada ciyaara, oo gaar ahaan ninku uu noqdo mid inta badan ciyaar badan oo la ciyaara gabadhiisa. astaamahaas 4 iyo kuwo kaloo badan waa astaamaha ay dumarku aadka u jecel yihiin inay ragga ka arkaan. gaar ahaan mowduuca ugu dambeeya wuxuu khuseeyaa keliya dadka lamaanaha ah ee qoyska iyo guriga wada degan, laakiin mawduucyada kuwan ka sarreeya waa kuwo si guud xataa xiriidhada iyo waxyaabaha soo hoosgelaya oo qeybka ah. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.